بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين soo dhawaada daawayaasheeda qiimaha iyo qaayaha lahow anagoo sii wadayna kalkaa kasii ambaqaadayna ka hadalkeenii iyo qaadadhigeenii taariikhda dhaqdhaqaaqa islaamiga ee soomaaliya ka ambaqaaday bartamihii qarnigii 20aad soo dhaafnay waxaanu soo gaarnay markii doctor cusmaan uu soo haleelay xarakadii intuu ku saamoobay dhalinyaradii isbarteen la kaxeeyey la geeyey markaskii ama xaruntii qarsooniga ahayd ku tiilay xaafadda waa beri ku tiilay marka doctor waxaan ku weydiinayaa kulankaasi aada meesha tagtay oo kugu horeeyey oo aada xaadirtay oo kolleyba aada baa u xamaasadeysneyd xiisana waad u qabtay marka maxaa ku cajibiyo bal kulanka habeenka ama maalinta casirka aad tagteen waxba nooga sheegi karta aan kula wadaagna jazaaka allah khayr runtii waxaa la dhihi karaa waa waxyaalo badan oo noloshayda saameyn ku yeeshay ilaa maanta ayaan kala kulmo isoo jiitay tii ugu horeysay waxay aheeday markii 3 nin baan ahayn cusub oo maalintii la keenay oo qof waliba qofkii keenay uu ka warbixinayay sida ka muuqatana haddii qofka liskama keeni jirine waxaa loo soo samay jiray maaragtay gogol dhig oo aniga waa kaa ninka walaalkay gogol dhiga uu suubiyey haddee ninkaasna waxaan jeclaa inaan maaragtay magaciisa sheego waa cabdiqaadir xaaji aw muuse ninka sidaa ii soo dhisay ilaahayna sabab uu iga dhigay ajirkiisana allaha siiyo asaa i keenay meesha 3dayni meesha la keenay markii laga warbixiyey qof waliba khalfiyadiisa iyo waxa uu yahay cabdiqaadir markuu iga warbixiyey aniga iga warbixiyey uu yiri ninkan nin fiqiga ku fiican weeye kutubta fiqiga Soomaalida daraasiisay intii ugu badneed daraaseeyay waxaa markiiba aada loogu farxay in qaybta maaragtay fiqiga xarakada dadka u qaabilsan oo ka taageeri doono in maaragtay maxaan ku iraahdaa ayaa la rabaa inaad isu diyaariso si isla markaas labadii kale yimid waxaa kamid ahaa walaalkii Allah u naxariistay Cabdicaziis Faarax Maxamed oo horena aan saaxiib ugu ahayn maaragtay masaajidka Asluuti wax ka wada akhrisan jiray oo markii dambe laakiin masaajidka Siigaale tajwiidka iyo xoogaa ka soo bartay asagana markii laga warbixiyo la yiri tajwiidka uu ku fiican yahay waxaa loo xil saaray inuu ku biiro dadka ka saxaya quraanka dhalinyarada cusub oo la keenaya oo tajwiid ahaan iyo quraankaba u saxayo halkaas waxaa ka muuqata rag nidaamsan oo xubintii ku soo biirto raba inay ka faa'iideystaan maaragtay jawaanibtii baahida ay u qabeen taas horta waxa weeye waxyaalihii markiiba soo jiitay kamid ahayd waxaanan iloobi karin oo aan rabaa inaan xoogaa maaragtay sheego arrinta ku saabsan maxaan ku iraahdaa muxaadaradii ugu horeysay oo naloo soo jeediyey markaad meesha tagteen waa laydin diyaar muxaadara laydin jeediyey muxaadara naloo jeediyey muxaadaradaas oo na fahmaya inay tahay silsilooyinkii socday oo lagu dhisi jiray dhalinyarada meesha joogtay inay kamid tahay runtii waxa weeye muxaadarada saameyn weyn bay ugu yeelatay muxaadarada waxaa soo jeediyey walaalkeynii weynaa cabdiqaadir sheekh maxamuud cinwaankeeda wuxuu ahaa sideedaba islaamka ulajeedooyinkiisa guud oo mujtamaca haddii islaam uu isu dhiibo oo u xaqiiqoobaya waa maxay halkaasaa wuxuu sharxay walaalkii waxaa loo yaqaana fiqiga islaamiga adaruuraat alkhamsa 5 shay oo daruuriga bani aadamka u ah iyo habka cajiibka lah oo islaamka ugu xaqiijiyey qofka taasoo ah maxaan ku iraahdaa qofka naftiisa in loo ilaaliyo maalkiisa in loo ilaaliyo sharaftiisa iyo sumcadiisa in loo ilaaliyo qoyskiisa in loo ilaaliyo xataa caqligiisa in loo ilaaliyo oo halkaa ku sharxay xuduudda aad garanaysiin oo 6 ah ama 5 shay ay kamid yihiin oo loo dhigay qofkan in lagu intaasoo dhanba looga ilaaliyo oo qofkii qof dila naf gooyo alla dila la yiri si nufuusta bani aadamka ay u badbaado qofkii maalkiisa ku xadgudba xadii loo dajiyo gacan goynta ahayd qofkii reerkiisa ku xadgudbo waxa weeye zinadii xadeedii ay meesha ku taalo qofkii xataa sharaftiisii meel ka dhac aflagaado u geysto xadil qadaf xadda la yiraahdo loo dhigay xataa haddii caqligiisii la rabo asiga inuu xifdisto haddii ay maaragtay naf iyo shaydaanka qaalib noqdaan oo khamre iyo daroogo iyo wax u isticmaalo xad loo dejiyay caqligiisa loo waxay ila noqotay
cajiib islaamka noocaas oo macaanta badan leh oo maanta hanti wadaagaana markaa la sharxayo bashbashi barwaaqo idin gaarsiina laleeyahay oo islaamkan haddaan qaadano oo intaa laga helo maxaa kaloo bani aadamka rabaa wax weyn baa kasoo baxay intaa kuma sinanine wuxuu ku daray sideeda dowladda islaamka maxay tahay waajibaadka ay qabato ciidankeeda baliiskeeda ama maaragtay ilaalinta shacbigeedana waxa ay kaga shaqeeyaan waa maxay intaas munkaraadka ay la dagaalamaan oo ilaaliyaan oo mujtamaca laga nadiifiyo qofkii lagu arkana xuduudda lagu qaaday ciidankeeda ay qabtaan halkaas ayaa waxaa marka la cadeeyey sideedaba dowlad islaam goormaa dowladda waa islaam la dhihi karaa goormaysan maaragtay islaamnimadeedii aan islaam lagu sifey karin haddii dowladda ulajeedadeeda dhan ay tahay islaamkaas inay dhaqan geliso xuduudda oogto oo shicbigeedana waxa dhan oo ay ku ilaalinaysa ay tahay aadaabta islaamka wax kastoo islaamka ku qaldanne ay ka daaficayso taasaa dowlad islaam oo islaamka soo jeeda la dhihi karaa laakiin wixii qawaaniin kale iyo xuduud kale iyo xeer ciqaab oo kala degsado oo ka baxsan maaragtay diinta islaamkaba wixeediina haddii lagu tumana aan danka lahayn laguma tilmaami karo dowlad islaam taamaka wacyi weyn oo islaamkiiba ah ayaaba muxaadaradii ugu horeysay aan ka qaatay waxaan filaya markaa in muxaadaradaasi aada uga tallaabsatay marxaladii ahayd xerow oo fiqi iska daraaseynayo iyo aayado tafsiirkooda macno la xifdina u daraaseynayo ama axaadiis laftooda xifdina u daraaseynayo aad kaga tallaabsatay ood u tallaabsatay qof mas-uuliyad iyo xil inuu saaran yahay dareemayo hadafkiisu inuu ka wen yahayba kitaab meeshaa lagu arsay tahay in ummad la abuuro la hogaamiyo khayrka loo hogaamiyo aada iyo aad difacna taas ahayd marka waayahay dadkii waa ka mid noqotay waxaa qiimaha len waa aragtay dareenkaaguna waa kacay saacadda waxay ka bilowda xubin baad noqoto shaqaysay sax waxaana ka muuqato raggu inay kula dhaceen oo ay kaa dhigteen dadka mas-uuliyiinta in kamidoo mar hadday yihaahdeen waxaad naga taageeri doontaa xagga fiqiga iyo axkaamta iyo barashada naga taageeri doontaa taa waxay keenta marka in aad barti qaraaraadka aad ka qayb gasho marka waxaan ku weydiinaya marka marxaladaasi adag oo lagu jiray go-aanada aada qaadateen ama xarakaday qaada si usii joogto noqoto oo ugu muhiimsanaa ee aadna aada goobjoog ka ahayd howlqabadkaa ugu horreysay maxaa ka mid ah waa arrin muhiima waxaan ka xasuustaa oo iguna muhiimsan oo go-aan aan dhihi karo isbedel weyn ayuu ku sameeyey socodkii xarakada aanba ku tilmaami karo maalmahaas maalmo ku dhowba shir baa la qabtay xaruntii lagu qabtay oo lagaga hadlayo sideedaba dhaqdhaqaaqayna iyo dadka cusuban iskuulaadka iyo ka keenna seen u tarbiyayna xaggeenna ku urursana haddeesaan hore idinku sheegay waatay go-aan ku gaareen xarunta markii la xiray caam ahaanta loo xiray waxaa la yidhi masaajidada duruusta ka socoto ha lagu kala beero qof waliba xaafadiisa kitaabkii lagu akriyo iskaga beeray ayagii baa kala tegay haddii leeyahay qofkii qof hela cusub intee keena xaruntaana waa xarun qof marmar un la imaan karo ma aha xarun oo duruus lagu qaata joogta ah ma aha maalintaas amnigana waa noo diidaya dabcan waxaa la yidhi marka waxaan lagama maarmaana inaan helno masjid oo aan ardada wixii aan soo helno dhan iskugu wada keenno kulligayna aan wada imaano halkaasna aan ku tarbiyeysano taasi say ku suuroobaysaa daraasaa lagu sameeyey wixii ka jiray masaajidada magaalada waagaas shayga noogu muhiimsana waxa weeye qur-aanka tafsiirkiisa in aan ku kulanno oo aan ka dhiganno dalada aan ka hoos shaqaysanayno tafaasiirtii magaalada ka jirtay ayaa markaa la daraaseeyey tafsiirkii aan shuruudda aan rabno iyo hadafka aan leenahay waa noo xaqiijina aan dhahnay wuxuu noqday tafsiirkii sheekh maxamed macali xasan allah u naxariisto oo masaajidkii maqaamka sheekh cabdiqaadir la dhihi jiray oo ka akhri jiray go-aan waxaa lagu gaaray saacaddaas wixii ka dambeeya xubnaha maaragtay ka tirsan ururkan maqrib kasta inay halkaa iska soo xaadiriyaan wax alla wixii dhalinyaro ah oo ay keeni karaan ama xaafadda ka keeni karaan ama iskuulaadkoodana qof waliba halkaa inuu keeno halkaana saldhigga caamka ah oo duruusta uu noo noqdo qolkaana uu noqdo shirarka iyo arrimahan tandiimiga ah oo markaan aan u shirayna bas ayib halkaa waxaad ku muujisay marka kulanka masjidkaa samaysan inuu idin xaqiijiyey
inuu noqdo barti kulanka. waxaa kaloo idin xaqiijiyey inuu noqdo mid mideeya yani macnaha masdarka thaqaafadiina iyo aqoontiina inuu idin noqdo. waayahay arrintaas kulliba wax badan baa la saaxiibay oo saa markaa samaysaan maxaa ka dhashay macnaha masaajidkaas wada goosateen qaraarka fulintiisa si ay u suura gashay macnaha. horta qaraarka waxyaalaha aan ku dhisno ulajeedooyinkiisa ugu waaweynaayo waxaan dhihi karaa laba hadaf oo ah sidaan warkiidaba hore ugu sheegay oo ah mid weeye in horta anagii laftikayna masaajida thaqaafatina waxyaalaha inaan isku meel ka wada biyo cabno oo dad qofba maaragtay maxaan ku irahdaa meel kale kasoo biyo cabay inaanan noqonin. midda labaadne dadkaas aan keenayno inaan meesha ku tarbiyeysano. haddaba markii ahdaaftaas darteed la yiri qaraarka lagu gaaray waxaa dhinaca ugu daran oo salbiga oo nooga soo baxday waxay noqotay waxaa jirtay saan horey u sheegnay badankeen waxaan ku xirneen sheekhii sheekh maxamed ciise la dhahayo suufiga ahaa. haddee inkastoo qaarkayne marmar un uu tegi jiray qaarne si nidaamsan bay ugu xirnaayeen. qaarka si nidaamsan ugu xiranaa waxaa jirtay waxay qaateen waxaa la yidhaha ijaazada suufiyada loo yaqaano oo shiikhaad ijaaza ka qaadanaya awraad buu ku ratibayaa waxa uu ku ratibayna ma khilaafi kartid waa inaad sideeda u samayso weliba waktigii uu ku cayinay. waxaa jirtay marka awraad dadka ijaazada qaatay mulzam ku ah bacda almaqrib bayna almaqrib walcishaa inay akhriyaan. haddii markii tafsiirkaas aan usoo wada leexano go-aankii lagu gaaray rag baa yidhi haddii awraadayni oo mulzamka nagu ahayd ijaazan qaad ijaazadooda waa beeca camal bay u dhigantaa suufiyada wax sahlan ma aha. marka see yeelaynaa sheekhiina meeshiisii tagno ama haddii meel kale xataa ay kugu qabato bayna almaqrib walcishaa inaad meel fariisato adkaartaas suufiyada akhriso wa dee qur-aanka ilaahay ka muhiimsan baan dhahnano. rag baa marka oo weliba raggii muasisiinta ahay kamid ah ayay ku adkaatay arrintaas oo saa darteeda naga go-ay oo masaajidkii sheekh maxamed ciise u go-ay tafsiirkiina inay nagala soo qeyb galaan diiday. waxaana ku magacaabi karaataa waa awal inshiqaaq fi hadihi alxaraka qoladii ugu horeysay oo naga go-da oo arrintii nooga go-dayna ay saas noqoto ayaa dhacday. waa gartay marka sheekh maxamed macalin raximahullah ayaa isugu timideen. sheekh maxamed macalin xasan kumuu ahaa noo tacriifi meelaha aad iskala jaan qaadeen shaqadiisii masaajidkiisa tafsiirkiisa kala jaan qaadeenna wax nooga tilmaamooda noo soo koobay. su-aashaas su-aal weyn weeye mana hadda mid ay anfacaysa ma aha xalaqaad socota dhexdeeda in kelima laga siiyo waa ka weyn yahay sheekh maxamed macalin xasan allah u naxariiste. dee sheikhaas azhariga ahaa ka horna culumta islaamka oo dhan soomaaliya ku bartay kabacdina azhar ilaa magisteerka soo qaatay weliba doctoraadi sii sajilay oo degdeg dacwada uu qaba darteed ugu soo degdegay. haddee inta markuu yimidayna ku biiray ururkii nahdadaasaan idin sheegaynay kabacdina dowrkii asaga uu qaada lahaa in badan daraasa inta ku sameeyey hababka ugu fiican oo soomaalida wax lagu tahiiri kara ayna markii dambe usoo baxday in qur-aanka loo fasiro inay tahay masaajidkii markaas uu ka dhiga lahayne in badan maasigii saaxiibadiisa ay ka tashadeen markii dambena meeshaa noqday maqaamka. laakiin intii hore o dhan ilaa waktigaas aan hadda go-aanka 1970 aan go-aanka ku gaarayno annaga dhallinyaradeeni shabaab itixaadi shabaab muslimiinka soo jeedo markaana tiro badan aan usoo guurayno imaanayno inta dhagaysan jirtay in iska yar bay ahayd oo odayaal xaafadda dirsaalaha iyo dhowrko iska jeclaystay laakiin wax weyn aysan meesha ka jirin. haddee annaga mar alle markaan usoo guurnay macal dhallinyaradayni oo dhan aan keensanay hal mar baa jawgii masaajidka o dhan isbedelay xalaqadii tafsiirka nooceedana uu aada isu bedelay. haddii sheekh maxamedne nin horey ay raggaan isu yaqiineen weeye oo dadkii muxaadaraadka ay ugu yeeri jireen oo markaskooda markii horeba ka jeedi jira u ahay lana tashan jireen xataa waxyaalo badan oo aada isula tacaafusnaa aad buu ugu farxay aad buu noo soo dhaweeyey. intii ka dambaysayne waxaa naga dhexaysa tansiiq ama iskaashi aada u weyn oo annaga maadaama dhalinyaro aan ahayn oo iskoolaadka aan dhiganayno masaa-isha maaragtay mulxidiinta ama cilmaaniyiinta ay nagula doodaan oo aan rabno jawaabaynan ka diyaarinay inta badan asaan uga imaan jirnay waana tawjiihi jiray. waxaa dhici jirtay xataa annaga maadaama baahida ardada aan dareemayno ardadiina annagaa meesha keennay mawaadiicna aan rabno inuu shiika aad u faahfaahiyo oo ardada soo jiidanaya intaan hore usii diyaarino ayaan shiika ula tegi jirna aan dhihi jirnay aayadaha soo socdo aayadaasoo kale markaad marayso waxaa munaasab ku ah maaragtay mawduucaas xoogaa inaad faahfaahiso
faahfaahiso asagana si fiican oo cajiib u faahfaahi jiray marka waxaan dhihi karaa wada shaqayn aad u fiican baa naga dhexaysay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب dhalinyaradaasi marka masaajidka isku keenteen idigana ku soo ururteen masaajidkiina waa camirmay oo dhaqaaq sameeyey shaqooyintaas bay ku ekeyd marka ahaa dee meeshaanba wixii loogu soo guuray in lagu shaqaystay ahayd dallad xoogaa sharciyeysan oo dowladdana ogoshahay oo maxaan ku irahdaa aan ka hoos shaqaysana loo soo guuray shaqada annaga aan qala jirnay waxaa ugu muhiimsanahay marka laga reebo iskuulaadka ardada ka keenidda aan ka keenayno ardadaas aan iskuulka masaajidka keensanay haddee wixii ay casharkaas kala kulmaan maahee inta kaloo dhan anagaa u dhamaystiri jirnay weliba casharkii laftiisa lasoo qaatay caawa meelaha aan rabno ardayga inaan indhihiisa kusoo jeedino ayaan u dhamaystiri jirnay waxyaabahaan samay jirnay waxaa kamid a mar alla markii tafsiirka uu dhamaado laga baxa masaajidka oo cishaha inta la dukada laga baxo horey baan sii raaci jirnay ardada qof waliba intii uu keenay ama intii loo qoondeeyey oo lagu og yahay jardiinooyinka ayaan maaragtay lasii fariisan jirnay muxaadaraad darsigii laftikiisii wixii laga faa'iidaystay iyo muxaadaraad aan ugu talankalnaa sii jirnay falanqayn barnaamijkan cusub iyo diintan aad wadageli jirteen wadageli jirnay wacyigeli jirnay waxaa intaa dheereed marka dhowr jeer ardayga jardiinooyinka muxaadaraadka lagu siiyo kii la arka inuu aad iyo aad markaa uu si hamuun qabo waxweyn in loo faa'iideeyo waxaan u samaynay xalaqaad guryaha ah oo aan geyn jirnay dadka aan isleenahay markaan waa lagu kalsoonaa karanaa xataa markaski maaha inaan geynayno laakiin guryahayna inaan geyno oon markaa isku ururino inta haddana basaylkooda uu sii gaarsiiyey inaan guryo la tegi karno oo aan duruus intaa dheer iyo ahdaaf intaa kasii waadixsan aan u bandhigo karno saasaan yeeli jirnay ما شاء الله halkaa runtii marka waxaa ku xaqiiqoobay yani ahdaaftii dacwada oo banaankana taalo oo xalaqaadka hooyinka socoto laakiin barta laga maamulo ay sir tahay marka waa qodob muhiima kaasina runtii waxaan filaya mar kale noo faahfaahin doontaa nashaadka barta laga maamulo waa sir laakiin nashaadku waa nashaad muuqda oo masaajidkii ilaa xaafadihii ilaa jardiinooyinkii ku socda wey ayib waxaa jirta markii lasoo gaaray waqtigaas aada xasaasi u ah oo aad iyo aad ku qiimo oo saameynta badan oo lahaa inay dhacday runtii xubno waaweyn oo qiimo agtiina ka lahaa oo hogaamiyaal idiin ahaa inay secondary ka baxeen ayna heleen minaha waxbarasho oo heleen dibadda inay u aadaan saameynta intee laydinku yeelatay waa arrin muhiim ah 11 markii qeybihiisii dambe lasoo gaarayay iyo 12 laftikiisii waxaa dhacday raggii asaasayaasha ahaa oo shaqadana runtii waa ku dul dhisneed la dhihi kara qaarkood in qaarkood ay waxbarasho dibadeed ay heleen markii dugsiga sare dhameeyeen oo ay naga tageen oo kamid yahay walaalkeena weyn cabdiraxiim sheekh maxamuud maalin guur oo talyaaniga ka helay maaragtay deeq waxbarasho deeq waxbarashadii la dhihi jiray European Common Market-ka EEC-da markii dambe loo bixiyey iyo walaalkii nooba ahaa abur ruuxi oo howlaha dhan ay ku dhisnaayeen ficlan oo cabdiqaadir sheekh maxamuud ahaa oo asagana jarmalka bari asagana ka helay maaragtay deeq waxbarasho taas runtii annagii waxay noo keentay ficlan xoogaa rag dhan oo aan ku tiirsaneen oo nooga khibrad badnaa oo meeshii ka baxay ayaa runtii ay keentay waxaa intaa dheereed oo xataa xoogaa wax nagu sii ziyaadiyey cabdiqaadir sheekh maxamuud khayr alaasiya markii uu tegayey 3 walaalaha ugu rooroon oo hawsha waday kamid ah ayuu wuxuu u xil saaray inay hawsha isu xil saaraan isku dubiridkeeda iyo wadideeda 3 ayaa 2 kamid ah iyagana isla markii waxay maaragtay sacuudiga ay aadeen walaal cabdiqaadir xaaji aw muuse iyo walaal cabdiraxmaan axmed nuur doctor cabdiraxmaan axmed nuur oo taqaaniin sacuudiga ay naga aadeen 3 maaragtay runtii odayaashayna kamid ahayd oo hawsha looga tagay inay isku sii dubaridaan saciid xaaji bas baa ka haray marka saa darteeda faraaq kala dhinaca naga soo galay intaa waxaa dheereed oo iyadana in la xuso mudan kacaanka markii uu dhashay hababkii uu kula dagaalamayay dhalinyaradan waa tiro badneed waxaa kamid ahaa mar alle markay meesha qabsadeen oy dhalinyaradina khatar u dareemeen waxyaalahay sameeyeen waxaa kamid ah dhalinyarada dadkii kamid ahaa
oo shaqaalo ahaa marka shaqaalo ahaa in laga fogeeyo markaska xarakada oo xamar bedel waxaa lagu dhuftay gobolada loo bedelo waxaa kamid ahaa walaalkii weynaa xuseen cali deershe oo loo bedelay berbera loo bedelay oo haddii xasuus ahaan aan ku daro walaal xuseen cali deershe hadee wuxuu ahaa ninkii guursaday gabadhii ugu horeysay oo xijaabatay oo maaragtay xaliime carfoon qoysaskii ugu horeeyey oo noo maaragtay asismo oo xataa gurigooda aan wax ku qabsan lahayn runtii oo ka kooban wiilashii soo dhismay iyo gabdhihii soo dhismay guurkii ugu horeeyey iyo guryihii ay noo dhisi lahaayeen inna la kala tuuray intaasoo dhan marka waa jalaafooyin uu ku talagelayay kacaanka inuu maaragtay xarakadan lagu kala dhantaalo intaasoo dhan ficlan waa na qabsadeen weliba waxay imaanayaan markaan hadda walaal cabdiqaadir iyo ay naga tegayaan waa wakti ay aad shaqadii u ballaaratay ardo badan iskuulaadka aan ka helnay maxaan ku iraadaa lasdhihi kara xarakadii waa ballaaratay shaqadeedana aad bay u tiro badan tahay ayaa qaar kamid a kawaadirtii shaqada waday aan weynay taasna xoogaa waxay noo keeni doontaa naqsi see looga qabtaa seese loo xaliya arrintaan oo kale inaysan dhicinne arrimo kale go-aano kalaa soo bixi doono aada waa mahadsantahay waxaad moodaa kacaanku marka askarba ha ahaadee in takhdiidkiisu khatar ahaa mar haddii jawaasiisda laydinku soo darteen laydinku soo dhex darana ay ka shaqeeyeen in laydinka heeyo dabka soomaali galbeed ka socdo laydinku soo laayo ay qorsheeyeen shaqaaladan dibadda yani gobolada loo kala bedelay waxaad moodaa marka qorshe isku xirano oo rabay kacaanku inuu si nabada idinkaga takhalas uu doonahayay ilaa dartaan waxaan aragnaa hadalka wuxuu u badan yahay asaaskiisa iyo soo bandhigidii waxaan soo gaarnay marka marxaladii marka si rasmiya marka ururka u dhismi lahaa iyo jamaacadii samaynta ilaa dartaan baa waxaa kamada hadlin waxaan is leeyahay daawadayaal kulankeena soo socdo waxa ugu qiimaha badan uu lahaan doono waxa weeye marxaladda adagidoo lagu jiro baahidii la dareemay in shaqadaas saa u ballaaratay rumuusteediina ay dibadda ka aaday isku hayn adag waxay u baahatay tiir adag yeesha oo ku dhisan marka qaacidada islaamka iyo jamaaco maamusho hama ogaanina kulanka soo socdo waa kulankii lagu dhisi lahaa ururkii weynaa taariikhda yeeshay saameyntiisa leeshay magaciisana dadka qaarkood ay ustuuro ku noqotay aan rajeynaya doctor cusmaan inuu daha ka qaadi doono intaa iyo intaa kala kulmi doon kulanka soo socdo waxaan leenahay kulan dambe wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu آخر خلاف إسلامية أي دولة عثمانية أي دعضي هذا ما أنت أنا هاينين هذا هو أن جماعة إسلامية أساسا هل كاسان كل مبايعوني بيعدي إسلام كسمع والطاعة أنا بسدح قف أو مالك كورنتا أو كعانك إذا أنك هايسنين وهالله أركا قيانة قرن عرب كاين سيان أبو إلى لأنه كلمة جماعة maxaan sameynaa haddii wax inu iska horeystana waa la rabaa magacaan baan marka goosanay inaad jamaacadaha samaysaan aad ku dhaqaaqdeen maxaa ka faa'iidaysateen macnaha أحسن قولا ممن دعا